بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إذا عشرة فربطان هوري عروسو براناي اكسل labada kun iyo sagaal iyo tobanka cashiradeenna waxaan macluumaad cusub soo diri karnaa somalistrabadiyo.com ama facebook pagekeena haddaan kusoo qorno www.facebook.com/somalistaronline haddaan kusoo qorno waan ka helaynaa halkaasna waan ka degsan karnaa waana very important taasi iyadoo cashiro fara badan horey aan uga soo wada faa'iidaysanay hadba tillaabaan horey usii qaadaynaa cashiradeena waa 2019 waa soo dhaaqaya start menu waa imaanaya all program excel 2019 kaas ayuu cashiradeena ka bilaabanaya kadib markaan introductionkii hadda soo qaadanay iyadoo hadba tillaabo horey aan usii socon doono waana very important iyadoo aan usoo gudbayno access iyadoo aan usii gudbi doono powerpoint kadibna aan usii gudbi karno programyada kala duwan ama softwareda kala duwan halkan waxaan ka faa'iideysan karnaa any software oo iyadoo lagu sharaxayo waana academic Somali Star Online Academy license weeye waana skillska xirfadaha hoose iyo xirfadaha saraba iyadoo hadba tillaabaan horey usoo qaadi doono taas ayaa muhiim jidana wixii cashiro ama wixii software latest u baahan tahay waxaa la soo xiriiri doontaan Facebook pagekeena fariimo nagu soo reebi kartaan halkaas oo mar walba jawaab ka heli doontaan waana meel walba adduunka aad ka joogtaan software walba aad u baahan tihiin waana kala soo xiriiri kartaan Somali Star Online haddaad kusoo qortaan facebooka www.facebook.com/somalistaronline fariimo waa nagu soo reebi kartaa ama waxaa nagala soo xiriiri kartaa message nagu soo reebi kartaa somalistaravadiyo.com iyadoo cashiro fara badan hore aan uga soo faa'iidaysanay halkaas fariimo waa noo soo dhigi kartaa annaga halkaa inbox ka raadin doono oo kuu soo jawaabi doono waana muhiim jiddan taasi waxaan usoo gudbayaa cashirkeena maanta marka excel annaga waxaan kasoo kicin karnaa start menu ama waxaan soo doonanayaa taski baa kuu noo saaran yahay haddaan doono waa soo dhaaqaya halkaan imaanaya start menuga all program haddaan ku dhufto excel 2019 waa inuu noqdaa cashiradeenaasi halkaan introductionkii baan kasoo qaadanay waxaan qaadan doonaa laysanka koowaad oo waxaan arki doonaa buuggeena koowaad sidaan password ugu xiran lahayn kadibna cashiradeena ayaa noo xigi doona sida xisaabaadkii calculation u samayn karno saas ayuu kusoo fariistay excel marka uu yahay 2019 editionka templatesyadaan horaan idinkugu sheegay blank workbook baan qaadanaynaa blank cusub blank walba maaqashaan waa blank meel eber kasoo bilow kuwana waa kuwii hore ama waxa weeye halkan buugag la diyaariyay oo designadan waa la isticmaali kartaa baa laga wadaa haddii mid kuu furnaa oo hore kugu jirana open baad dooranaysaa wuxuu kuu soo saarayaa exceladii hore ku jiray new haddaa rabtana mid new baad dooranaysaa haddii sambaladan aa mid kamid a doontid inaad qaadatidna waa qaadan kartaa waa excel oo sambaliskan u diyaarsan ardayga jecel cashiradan saas ayuu kaga faa'iidaysan karaa waana muhiim jiddan sambaliska diyaarsan waxay ku anfacayaan inaad adigu waxba soo diyaarin sambalkaa ka raacdo aada editing garayso waana ku qaadan doonaa cashiradeena soo socdo inkastoo cashiradeena koowaad aan rabna anaga inaan sameyno formulooyin kala duwan qaacidooyin kala duwan annaga aan abuuri doono laysan one wuxuu ka bilaabanayaa saa markay tahay meel eber ah waa blank workbook see ugu xiran karnaa markaa password oo kale wax lamid ah buuggeenaan haddii aan doonayno inaan la soo gelin oo cidna usoo dhicin xisaabtiisa aan la ogaan password waa inuu leeyahay buuggaagu sidii aan kusoo baranay Microsoft Word oo kale markaan password inaan marka ugu soo horeyso anagoo waxba gelinaan rabno inaan ku xirno waxaan dooranayaa file waxaan dooranayaa halkaas save as halkaa waxaan dooranayaa browserkaan dhigayo browserka waa desktopkaan dhigi doonaa ama documentigaan dhigi doonaa documentigaasaan ku xareysan doonaa book one baa ku qoran marka annaga waxaan u bixinaynaa excel xisaabaad baan u bixinaynaa xisaabaadka companyga save baan dhaynaa xisaabaadka companyga marka uu noo save gareysan yahay aan hubino file baan dib u dooranayaa save as baan dooranayaa browser baan dooranayaa xisaabaad uu ii sax yahay toolska halkan ka furanayaa general option baan furanayaa passwordkii 12 baan ka dhigayaa okay baan leeyahay mar labaad baan 12 gelinayaa waa confirm password confirm ka hadda gelin ma shaqeynayo okay baan leeyahay save baan siinayaa yes baan leeyahay marka la confirm gareeyay kadib kan waa ka baxayaa marka si aan usoo galo mid cusub marka documentiga aan soo dhigay baan ka raadinayaa toos
waa inuu isku xir waa inuu passwordka saa i weydiiyaa buuggaaga haddaada password kusoo xiran hadhowdii xisaabtaadii dayac bay noqon doontaa marka passwordkii baan ku furayaa 1 2 okay baan dhahaya ila soco cafwan ila soco cashirkeennii ayaan ku guda jiraa lesson 1 waa buugga koowaad oo xisaabteennii aan ugu talagalnay waxaana kasoo qaadanay sheetkii koowaad sheetkii labaad markaan rabo blaskaasaan dooranayaa new sheet buu siinayaa blas haddaan ku dhifto 12 sheet halkaan waan ku diyaarsan karaa oo haddii aad tirahdaan sanadkii waxaan rabaa inaan ku shaqeeyo warqad gaar ah spreadsheet inoo gaar ah oo formkan tan ayaan weligeedba buuxsamayn waa 106,000 oo row wey cell waxaa la yidhaahdaa intani cell waxaa la isku yidhaahdaa intani cell intaa wareegaa la yidhaahdaa row macnaha columna waxaa la yidhaahdaa intan isku wada xiran column intana row bay noqonaysaa isku xiran oo dhuuban intani oo saan kow ama laba kasoo saas row baa loo yidhaahdaa jiifka taagana waxaa loo yidhaahdaa column inta yaroo isku xiran oo afartaa geesna cell baa la isku yidhaahdaa intaa inaan fahanno ayaa marka ugu soo horeysa waa muhiim jiidana kani muxuu ka kooban yahay marka haddaan isweydiino ilaa intuu ka kooban yahay control arrowga hoose haddaan taabto waxaan tegayaa 148,576,000 oo sal weeye meesha ugu horeysa koway kasoo bilaabanaysaa ilaa halkaas u taxan yahay marka waa spreadsheet warqad aada u weyn wey sanadka haddaan ihahdo markaa mid walba gaaraan ku shaqeynayaa 12 sheet baan rabaa inaan ku shaqeeyo waa ka aad baan leeyahay mid afraad aad baan leeyahay mid shanaad aad baan leeyahay oo blaska taabanaya mid lixaad aad baan leeyahay mid toddobaad aad baan leeyahay mid sideedaad aad ku dar baan leeyahay mid sagaalaad mid tobnaad markaas 10 sheet baan kan ku haystaa mid walbana magac baan u baxsan doonaa sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet 4 sheet 5 sheet 6 sheet 7 sheet 8 sheet 9 sheet 10 baa ku qoran laakiin waa bedelan doonaa mid walba waxaan u bixin doonaa magac gaar ah kambaniyada aan ku shaqeynayno ama kambaniga aan ku shaqeynayno magac baan siinayaa sheet walba si xisaabtiisii gaar aan ugu raadiyo hadhowdii excel marka waa applicationka accountiga ay ka bilowdaan uu la shaqeeyaa baakajyada kale sida accountiga quickbook uu la shaqeeyaa taaliye waxa la mido all softwarada laga shaqeeyo accountiga oo dhan buu la shaqeeyaa sababtoo waa basic accounting oo laga isticmaalo electronic waa kuwa ugu horeeya accountiga lagu isticmaalay oo ugu soo horeeyay okay markaas wuxuu ku dhex jiraa waxa ay isku yiraahdaan office ku dhex jiraa Microsoft Office ayuu ka yahay application kamid ah okay hore waxaan usoo barnay Microsoft Word oo lagu diyaariyo dokumentiyada qoran maanta waxaan arkaynaa Microsoft Excel oo lagu diyaariyo dokumenti xisaabeedyada iyadoo aan baran doono access oo lagu talagalay database ama in lagu kaydiyo shaqaalaha ama in lagu kaydiyo ardayda iyadoo aan ku xijin doono PowerPoint oo lagu diyaariyo presentationada marka casharradeena sidaas ayay u socon doonaan cashirkeenani labaad maanta waxaan ku qaadanay introductionkii wixii ka dambeeyay cashirkeenani labaad waxaan ku qaadanay sida sheetska u badin karno waxaan ku qaadanay sidaan password ugu xiran karno buuggeenani oo faaruq ah password ku xiri karnaa buuggeena saac ayaa cashirkeennii uu ka bilowday cashirka xigana xisaabtii sidee baan u xisaabin karnaa oo aan u isticmaali karnaa xisaabta isku daris kala jaris u qaybi iyo ku dhufo iyadoo hore aan ugu socon doono calculation aan aadi doono kor aan u socon doono waana basic cashiradan sidaa darteed fi amaana allah wasalaam